kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dib kaga fiirsanaysa in ay u dhaqaaqdo iyo in kale xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey sababo la xiriira qaab ciyaareedka wanaagsan ee uu iminka ku jiro xidiga Ross Barkley iyo 22 jirka xulka qaranka dalka Ingiriiska ee Ruben Loftus-Cheek oo isna si fiican u ciyaaraya. Blues ayaa kamid ah dhowr kooxood oo isha ku haya Ramsey kaasi oo lagu wargeliyay in uusan kamid ahayn qorshaha kooxda Arsenal wixii iminka ka dambeeya xilli qandaraaskiisa uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan. hase Chelsea ayaa waqti xaadirkan mar kale ka fikiraysa in ay la soo seexato iyo in kale ninka reer Wales ee Aaron Ramsey sababtoo ah qaab ciyaareedka wanaagsan ee ay ku jiraan xidigaheeda qadka dhexe ee Ross Barkley iyo Ruben Loftus-Cheek. dhanka kale kooxda Liverpool ayaa guud ahaanba isaga baxday doonitaanka xidigan qadka dhexe kaga ciyaara xulka qaranka dalkaas Wales Aaron Ramsey. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso.